أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Soomaaliyay maxaan maanta idin hayaa walaalahayga Soomaaliyeedow, dumar, hooyooyin, gabdho iyo wiilasha even isqurxinaya. Hoos ayagu waa naflay, waxay u baahan yihiin inay isqurxiyaan. Wixii qurxan waa la jecel yahay, wixii qurux badan oo dhan waxaan idin hayaa maanta waa cornflower ama dad baa u yaqaan mice. Yurubtaas kale mice ayaa looga yaqaanaa. I think xataa carabaha mice ayay oran jireen. Waxaa kaloo Soomaalida u taqaanaa waraango. waa waraangadii lagu dari jiray xalwada Muqdisho, waa xasuustaa. waxaan idin hayaa kala caanaheeni, caana niido. waa taqaanaan caana niido, la idima sheegayo, iyo rose water. marka waxaa weeye waxay u fiican yihiin wajiga. waxaan bilaabaynaa marka daawasho wacan sidaa isugu dardarsanaysid ood kadibna aad wajigaaga u marinaysid ilaa iyo qoorta. waxaa weeye waa in waxyaalo wanaagsan oo intifaac leh aan ku idhaahdaa aan idiin keeno ayaan u ahay ready. walaalahayga Soomaaliyeed oo ka faa'iideysi wacan. waxaa weeye macalgad waraanga ah, si hal macalgad oo tii cunada ah, iyo macalgad caano niido ah. waxaa ujeedaan hal macalgad oo caano niido ah. waa aragtaan. maxaa ku soo haray rose waterkii. rose waterka waa kala duwan yahay. marka kan rooska cad, mid cadaa jira oo ubax cad iyo mid ubax beerbal. kan waa ubax casaanka. marka waan ku qooshaynaa rose waterka. waa ujeedaan ها aragtaan xoogaa wuxuu iga noqday khafiif. rose waterka iga batay, ma fi mushkila. bas caanaha maxay noqonayaan leyta adayg iyo bahasha muraangada dib bay ka adkaataa. adayg ayaa isku sameysaa taas muraangada. waxaa weeye marka waxaan idiin sheegayaa waxay ku fiican yihiin. rose waterka wuxuu u fiican yahay dadka qaba allergiga, agsimada. wuxuu kaloo uu caawiyaa, uu hiil gareeyaa meel haddii ay wejiga sarma kaa gaadho oo wejiga dhaawac uu kaa gaaro, wuu hiil gareeyaa rose waterka. waxaa kaloo u fiican yahay botiska, nabraha wejiga kasoo baxa. waxaa kaloo uu u fiican yahay wejiga casaada, sida gabdhaha isticmaala dawooyinka la ysku caddeeyo. haddii ay marsadaan rose waterka wejiga, wuxuu ka bi'iyaa guduudka wejiga uu noqdo ayuu ka bi'iyaa. rose waterka waxaa kaloo uu u fiican yahay cuncunka, sida allergiga, sida dadka samarkii oo kale ee dhirtu ay dhibto oo maaragtay ay ku kacaan allergigu, ama intuu boor iyo maxaan ku idhahdaa iyo wax xaaqo ama wax uu jafo. allergiga wuu bi'iyaa rose waterka haddaad wejiga iska marisid. even wejiga keligiis ayaa marsan kartaa. wuxuu sameynayaa dhalaal yar. marka rose waterka waxaa kaloo u fiican yahay waxyaalahan junuuda iyo xataa dad u isticmaala ayaan arkay. wuu fiican yahay, carabahan arkay iyagoo dadka juniyada iyo waxaas isha iyo maaragta qaba xataa loo isticmaalo. waxyaalo badan u fiican. wax walbo ilaahay sameeyey waxbuu ku fiican yahay. caanahana waxaa weeye waa taqaanaan. waxaa weeye caanaha wejiga way dhalaaliyaan. waxayna maxaan ku idhaahdaa u fiican yihiin dadka maxaan ku idhaahdaa isheeg bahalkii qaba, maxaa la dhahaa isheeg
wejiga madowga uu ka galo way dhalaaliyaan caanaha. waxaa kusoo hora waraangada dadka wejiga subaga leh ayay u fiican yihiin. subagay dadka wejigooda subag, dad wejigooda waxaa jira subag badan yahay. haddaad marsatid subagii ood rabtid inaad marsatid maxaan ku irahdaa makeup oo kale, waa inaa horta subaga wejiga ka bi'isaa. marka kan haddaa marsatid oo wejigaaga uu subagii ka bao ood iska maydhid, kadib make-upkii waad marsan kartaa. marka walaalahayga Soomaaliyeedow waxaan idiin sheegayaa wax walba oo ilaahay oo nimcaha uuna siiyey waxay leeyihiin faa'iidooyin inoo gaar ah, because waxaan waa wax dhulka ka soo baxa. kanina dhulku ka soo baxaa, kana de waaba xayawaankii oo de dadkuba xayawaanka caqliga leh ayaa la yiraahdaa. maxaan ku irahdaa wixii dhul ka soo baxana dee dadka bini-aadanka waxaa laga abuuray dhoobo ciidda. marka waxyaalihii ciidda ka soo baxana waxay noo leeyihiin nafaqo iyo nafacaad. marka ka faa'iidaysi wacan, isqurxin hadde waxyaalo badan oo kale oo idiin soo gelin doonaa. laakiin channelkayga soo booqda. waan salaamayaa. share, comment, like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.